ciyaar saaxiibtinimo ayaa shalay galinkii dambe ka dhacday garoonka kubadda cagta Muumin Dolaal Stadium ee bartamaha magaalada Boorama. ciyaartan ayaa kulmisay ciyaartooyadii hore ee cuslaaday kuwaasi oo ka ciyaari jiray sanadadii 80meeyadii 90meeyadii iyo ciyaartooyadii 2000 ciyaari jiray kuwaasi oo guud ahaanba ciyaartani ay ka soo qayb galeen dadweyne tiro badan oo iyagu daawanayay ciyaartan ay soo bandhigayeen ciyaartooyadii hore ee cuslaaday. Samaroon Cabdilaahi Cilmi oo isagu soo qaban qaabiyay ciyaartan ayaa faahfaahin ka bixiyay. Baada TV-ga qabaqabada dadkan ciyaaraya horta waxay isku jiraan dadyo kala duwan. qaar waxa weeyaan dadkii 80maadkii ciyaarayay 90maadkii 2000 iyo wixii ka dambeeyay oo isugu sii jiraan haddana si kala qaybsan boqolkiiba 70 waa dadkii qolqol joogay ee dhulka joogay boqolkiiba 20 waa reer Djibouti boqolkiiba 10 waa Yurubiyada qurba joogay marka waa daa kala duwan laakiin ay isku keentay ciyaarta taasina waxay muujinaysaa ciyaartu inay da lahayn xaafada lahayn magaalooyin lahayn waxba lahayn waxaan xad balahayn ay tahay ciyaaro garasho hore iyo garasho dambe ay isku keentay inay wada ciyaaraan ujeedaduna in la kulmo laga yaabo in la kulmi doonin ujeedada ugu weyn taabay Xamud Ibrahim iyo Maxamed Maax oo kamid ah ciyaartooyadii 80maadkii oo iyagu ka ciyaari jiray garoonka kubadda cagta ee magaalada Boorama ee hadda lagu magacaabo Xaaji Daahir Stadium ayaa iyagu guud ahaanba ka dareen celiyay ciyaartani siday u arkaan. Sodomeeyo sanadood ay ugu dambeysay Boorama oo kubad ka ciyaaro aad baan ugu faraxsanahay rag badan oo aan waqtiyadan daad yaraan isla ciyaari jirnay ba maanta halkan ku kulanay waxaan aad ugu mahad celinayaa Samaroon ninka la yiraahdo nin Khaaliya oo abaabulaa oo aan oran kara anigu uu tafir socdaayo siraad celi hooyadii waxay gabadh aad u Khaaliya oo dadkii Soomaalida ugu horeeyay boqortooyada Ingiriiska la kulmay qaban qabiyo weynayn in keegin halkii uu ka sii qaat isaga maanta isku keenay isagana aad baan ugu mahad celinayaa dhalinyarta Boorama aad baan u bogaadinayaa in sportiga xajiyaan waxaan aad u la soconay qurbaha meel kasto ay joogan dadka Boorama iyo dadka ka soo jeeda ay reer Djibouti gebi competition-kii weynaa ee Somaliland iyo sidii u badiyeen dhalinyarta Boorama aad waxaan ugu boorin lahaa inay sportka dib u soo celiyaan dadka Boorama ka soo jeeda meel kasta caalamka joogaana waxaan oran lahaa tala nin la u galgasha tolna weerkiya marka waxaan nagu maadartay ba anoo ka faa'iideysanaya fursadan walaalkay Axmed Ciltireysi inaad sportiga Boorama aad ula soo dadaashaan oo dhalinyaro kubadu soo dirtaan oo agabka sportiga oo dhan aad la soo ogaataan. Bismillahir Rahmanir Rahiim horta maanta farxad weyn bay tahay muddo 25 sanadood ah in markii horeysay garoon Boorama ku yaala aan galo anigoo iloobay ciyaarta haddana rag badan oo ciyaartii ugu dambeysay 1993 markaan ka saftay garoonkii Baroole ee Boorama oo oday ka mid ahaa inaan maanta halkan kula ciyaaro oo ay muddo badan isku ka dambeysay horta aniga shucuur gaar ah bay run ahaantii ii sameysay iyo waliba dhiirigelin in daayirahan ismoodayba oo nin daayir ahay laakiinse run ahaantii aad iyo aad baan ugu mahadnaqay ragga soo qaban qaabiyay hawshan iyada ah oo igu dhiirigeliyay anigoon islahayn gal run ahaantii jawiga wanaagsan ee Boorama dadka dhalinyarada reer Boorama. ciyaartan ayaa waxay ahayd mid aad u xiiso badan oo soo jiidatay dhammaan daawadayaashii ka soo qayb galay. Axmed Riyaa Ciltire wararka warbaahinta SBC Boorama.